Waxaa nolosheena ka soo baxa fursado muhiim ah oon la mid ahayn kuwii hore. Fursadahaas oo aan ku awoodno in aan iyaga ku gaarno waxaan kuwa kale ku gaari weynay. Maanta fadliga Alle iyo naxariistiisa darteed, waxaan soo dhaweynaynaa mid kale oo ka mid ah fursadahan cajiibka ah. Bisha Ramadaan oo ah bisha Qur'aanka, bisha cibaadada iyo u dhowaanshaha Alle. Bishan ma jirto bil kale oo la mid ah. Waxaa mahad iska leh Allah, kaasoo cimriga noo dheereeyay oo ina gaarsiiyey bishan barakaysan. Waxaan rajaynaynaa inuu Alle inaga aqbalo soonka iyo cibaadooyinka aan samaynayno bishan dhexdeeda. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, kuwa xaqa rumeeyo waxaa laydinku waajib yeelay soonka sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horeeyey, saad u dhowrsataan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa kale uu yidhi, waa bisha Ramadaan taasoo dhexdeeda lagu soo dejiyey Qur'aanka, isagoo hanuun u ah dadka, iyo caddayn hanuun, iyo kala saaris xaqa iyo baadilka. Ee ruuxii joogaa ha soomo, ruuxiisa buka ama safar ah waxaa saaran maalmo kale. Wuxuu Alle idinla dooni fudayd, ha idinlama doono culays, waana inaad dhammaystirtaan tirada. Weynaysaanna Alle wuxuu idinku hanuuniyey, waxaadna mudan tihiin inaad mahadisaan Alle. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, markay bisha Ramadaan bilato waxaa la furo albaabada jannada, waxaana la xiraa albaabada naarta, waxaana la xiraa shayaadiinta. Dadka qaarkiis waxay odhan karaan, maxaan Ramadaanta weli ugu fikirayaa waxyaabo xunxun, marba haddii shaydaanka la xidhay. Jawaabta culimmadu ka bixiyeen waxay tahay, guud ahaan shayaadiinta intooda badan waa la xirxiraa bisha Ramadaan, laakiin weli waxaa furan shaydaamo yaryar oo xumaanta inoo qurxiya, waana kuwo daciif ah oo liita. Midda labaad, shaydaanku wax yar oo xusuus ah ayuu kaaga tagayaa Ramadaanka ka hor, iyagoo rajaynaya inaad dib u milicsato waxay kuu sheegeen Ramadaanka intaan la gaarin, saad bisha Ramadaan u soo xasuusato. Laakiin runtu waxay tahay inay aad u daciifsan yihiin. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay wax la yaab leh oo ku saabsan habeenka ugu horeeya ee Ramadaan. Ma og tahay waxa dhacaa habeenka koowaad? Wuxuu yidhi, marka la gaaro habeenka koowaad ee bisha Ramadaan, shaydaanka waa la xidhaa, albaabada naartana waa la xidhaa oo hal albaab lagama furo, albaabada jannadana waa la furaa oo hal albaab lama xidho. Habeen kasta oo ka mid ah bishan, Alle wuxuu doortaa addoommo fara badan oo naarta ayuu ka badbaadiyaa. Ramadaanka camalka suuban iyo cibaadadu tiro iyo noocba way badan yihiin, ee dooro oo samee mid kasta oo aad rabto. Wixii wanaag ah waad samaysid oo dhan waxaa laguugu abaalmarinayaa abaalmarino fara badan, si aan la mid ahayn bilaha kale. Ramadaanku ka dhigo mid kuu hiiliya, oo samee camal aad Alle ugu sii dhowaanayso. Ilaahay guryaheena aakhiro ha ka yeelo jannatul firdaws al-aaclaa. Akhri Qur'aanka, xumaanta iska ilaali, oo ku fikir Qur'aanka maalin kasta iyo habeen kasta oo bishan ah inaad akhrisid. Sadaqo bixi, habeen iyo maalin tuko. Ku dar wanaag iyo cibaado kale oo aadan horay u samayn jirin. Dib u milciso ciladahaaga oo arag waxaad u baahan tahay inaad horumariso. Sidoo kale horumari nafsadaada. Eeg xiriirka aad la leedahay waalidka iyo carruurtaada, walaalaha iyo qaraabadaada. Bal u fiirso dabeecadahaaga wanaagsan oo sii horumari. U fiirso dabeecadahaaga xun oo ka shaqee sidii aad mar uun u joojin lahayd. Waxaadan arki doontaa inta awood ee aad dhab ahaantii leedahay. Ka digtoonow inaad habeenkeeda ku qaadato waxyaalaha xaaraanta ah ee social media yaala. Dhegeyso Qur'aanka Kariimka oo daawo wax ku anfacaya. Ka digtoonow dilaaga ugu weyn ee camalka wanaagsan oo ah carabkaaga iyo farahaaga. Xanta iyo cayda. Waxaadna ogaataa in xanta, aflagaadada, cayda iyo xumaanta oo la faafiyo ay dembi weyn tahay. Waxaana ka sii daran markaad ku qorto baraha bulshada. Waxay ku qornaanaysaa meesha oo keda ay ku noqonaysaa, oo dembigeeda wuu socon doonaa xataa markaad dhimato dabadeed. Waanaan u gargaarnaa, oo aan cunto siinaa dadka masaakiinta ah ee sooman say u helaan afur. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii u sameeya cunto qofka sooman oo ku afuro, wuxuu helayaa ajar la mid ah midkiisa. Haddaad wax ka faa'iiday, la wadaag dadka kale say iyaguna uga faa'iidaystaan. Mahadsanidin Dada Bro Family. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Ilaahay ha idin barakeeyo. Ramadaan mubaarak. Waxaan isku arki doonaa muuqaalka xiga.